lix dumara baa ilaahay kaga warramaya suuraddaasi laba waa la waaninayaa labana tusaale fiican baa laga dhigayaa labana tusaale xun baa ilaahay ku tilmaamaya laba waa la waaninayaayo Caaisha iyo Xafsa oo nabigu qabay calayhi salaatu wasalaam Umar iyo Abi Bakarna dhaleen ayaa la leeyahay haddaa xumaha samaysaan guulaysan maysaan walow xaasaskii nabiga tihiin walow ayna Abi Bakar iyo ina Umar tihiin ina Umarna wax ku heli maysid ina Abi Bakarna wax ku heli maysid haddaad jidka diido sax ah dabeetana ilaahay suuradan buu soo dejiyay oo lixda dumar kula hadlayo labana waxa la sheegay inay xaq ku sugnaan waayeen oo ka weecdeen oo ah laba nabi qabeen ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين إلهي سبحانه وتعالى وحليه وحتى سأل الله إذن كندقيا لبدي هوانها قبين لبدي النبي نبي نوح يا نبي لوط لبتنا جدكي نبي لوط يا جدكي نبي نوح بيكوى عدين انت هوكتي يا أهل النار كابي كبير بإلهي لي ولو النبي قبين mar hadday xaq diidaan oo diinta si dhab ah uga weecdaan waxba nabinimadu caawin mayso waman yushrik billahi fakaannama kharra min as-samaa caawin mayso dhanka kale ilaahay subxaanahu wa tacaala laba dumaro oo khayr qabo u tilmaamaya oo aan iyaga nebiya dhalin nebiyana qabin laakiin iyagu noqday dad khayr qaba oo iyagu midina nebi dhashay midina nebi korisay laakiin wanaagooda laguma tilmaamin inay nebi dhashay oo quraama inay nebi korisay waxa lagu tilmaamay inay mowqif istaageen inay diintooda raaceen iyadoo imtixaanaadka ay soo mareen وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إلهي وحكرته صالح كسينا يا بار رب الله سبحانه وتعالى امرأة فرعون هوين يديسي فرعون ومن أعتى أعداء الله فرعون ومن أكبر الطغاة إنه طغى أي إلهي كسفي فرعون وبغركي أمري قبائل دانين أنا رجل فرعون ونكبري وانتو أركو صعدا في ميل والبا ضدك أشيكتين إنه إلهي هي إنه ربي تخذ بدايي له أنا ربكم الأعلى ربي إنك الريانة ضدك هو صعدا في حاشية حاشية وزير ذي أنتم كل دويو مضحضة أيكو يري ما علمت لكم من إله غيري وملائكو كتل ماما يا عمد الإسكاليبي يا شعب ويني ملئي بوحلي ما علمت لكم من إله غيري إله أنا أدري هين دين قرن مايو نينك هل كاتاغن أي هوين دينو بدر دينك هرتمات نينك موقف كايسلا تاغن قبيل لن وحي لين قورعية dadka rabbinimada u sheegtay ilaahnimada ay haweenaydii ku tala gashay inay hortaagto oo ay rabbi doorato markaas ilaahay baraysaa waxay leedahay rabbi ibni li indak baytan fil janna ilaahu adiga agtaada fircoon agtiisa maaha wuxuu fircoon nimco iyo haystay oo dhan uma muuqato فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون وأرميدا نركي إننا نقول يا هي ملك مصر مصر بغرطوية دي أردن وحق السوري النعمان هستم يدا نركي ميدا نركي بولاي هي وهذه الأنهار تجري من تحتي وحوبية هو استيد الدريرية هوين إذن laguma qaldin inay qasri ku nooshay laguma qaldin boqor inuu qabo may qaldin
in webiyaal hoosteeda dareerayaan laakiin waxaasoo dhan waxay ka dooratay ilaahay jaarnimadiisa waxay mufasiriintu yidhaahdaan intaanay guriga sheegin jaarkay sheegtay rabbi ibni lii cindaka baytan fi ljanna ilaahow agtaada guri iga sii bay leedahay jannada haweenaydaa ilaahay subxaana wa tacaala iyadoo nebi ahayn ayaa ilaahay kitaabkiisa qur-aana ku xusay oo ku tilmaamay mowqifkeedii iyo siay diinta ugu sugnaatay haweenay labaad baa ilaahay qur-aanka ku sugayaayo kuwan ka mida waa imra'a waa maryam qur-aanku sida badan ilaahay subxaana wa tacaala markuu dadka ka warramayo ambiyada mooyaane waxay yidhaahdaan magacyada badane kale ma sheego maalan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhowr jeer buu qur-aanka magaciisa ku qoray wixii saxaabo nebiga la noolaayoo dhanna zayd oo qura ilaahay ka magac dhabe wixii qabaa'il carbeed ee meesha deganaa oo dhan quraysh qura ilaahay mar qura magac dhabe liilaafi qurayshin ilaafihim qurayshoo dhowr iyo 20 sannadood ay nebi moxamed ishayeen calayhi salaatu wasalaam haddana mar qura magacooda qur-aanku tilmaamay qur-aanku asmaada inta badan ma qiimeeya wuxuu tilmaamaa maxay afcaasha sidii kii waxaan sameeyey gabadha caynka yeeshay kii caynka yeeshay maryami waa gabadha keliya qur-aanku magaceeda tilmaamay tilmaam qura maahae dhowr iyo 20 jeer mararka qaarkood culimmada qaar ay yidhaahdaan 30 baar may ka tallaabaysaa magaceeda ilaahay si cad u tilmaamay maryama ilaahay magaceeda waa ku celceliyey qur'aan la akhriya ilaahay magaceeda ka yeelay qur'aan ilaahay lagu caabudo inay noqoto maryama ilaahay wuxuu ku sifaynaya subxaana wa tacaala inay ahayd gabadh saalixada oo dhowrsoon waxaa ilaahay ku sifaynaya dhowrsanideedaasi iyo cibaadadeedaasi karaamaadkeeda ilaahay qur-aanka ku tilmaamay waa gabadha iyadoo masaajidka iska joogta xagga rabbi cunno looga keeni jiray ilaa nebigii hayee zakariya uu weydiiyo waxaan xagga kaaga yimaadaa ay tidhaahda in allaha yarsuqu man yashaau ilaahay baa cidduu doona arsaaqa ay ugu jawaabaysay hunaalika dacaa zakariya rabba baa ilaah yidhi halkaa markii uu zakariya arkay haweenaydan iyo waxa karaamo ka dhacday buu ilaahay subxaana wa tacaala baryey haweenaydani waa haweenayda ilaahay ilma siiyey iyadoo ninba arag waa nooc min alimtixaan dhan marka laga eegana waa nicma waa imtixaan gabadh cibaado ku caanbaxday oo masaajid joogta marun in la arko iyadoo calooshu buuranta oo ur leh imtixaankaasaa ku dhaco dad oo dhammi ceebaynayaan markaasoo la leeyahay waxa kanaad wadataa waa maxay ilaahi subxaana wa tacaala laakiin iyana qur-aanku ku magac dhabay kuna tilmaamay allatii axsanat farjaha inay tahay tii dhowrsanaatay cafiifadda noqotay idan waxa aan tilmaamayn oo dhammi waa dad la imtixaamay dadna imtixaanka waa ku guulaysteen dadna waa ku guuldaraysteen